السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة مع الأبغاري يوتيوب channel kusoo dhawaada مع الأبغاري يوتيوب channel halkan waxaad had iyo jeer kala socotaan barashada luqadda Englishka qaybaheeda kala duwan maanta waxaan idin wadnaa waa 4000 essential English wordski buugii inoo socday ka koobnaa 30ka unit kastana lahaa 20ka eray ee targetka ah target wordska waa 600 eray haddii 30 lagu dhufto 20 4000 essential English words ayaa loo yaqaanaa magaca buuga buugiisii koowaad unitkiisii koowaad ayaan idin soo bandhignay balse intaan casharka iyo duruusa u gudbin waxaan aad u soo dhaweynayaa bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan ee dunida daafaheeda ku nool inay ka faa'iideysanayaan Macallin Abqari YouTube channel inta subscribe gareysay gambalaalkana furtay aad u mahadsan tahay nagu taxnayd sida joogtana duruusi casharadii ka socday Macallin Abqari YouTube channel ugu taxnaa kana faa'iideysanayay aad ayadu mahadsantihiin leeyahay waa dhiirigelin weyn inoo noqotay aad baana maaragtay ugu mahadsantihiin sida wanaagsan aad ugu taxnaydeen sidoo kalena waxaan idinku hambaleynayaa sida aad u gaarsiiseen bulshada oo share-ta iyo like-ta aad maaragtay ugu dadaasheen sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa bulshada kale ardada kale ee daneynaysa barashada luqadda inay si free ah u helaan channelkan ugu taxmaan ayagana waa ku soo dhaweynayaa cidii nagu cusub aan bahada Macallin Abqari YouTube channel hore uga mid ahayn inay hadda ku soo biirto subscribe gareyso gambalaalkana furato like-ta iyo share-tana dhiirigelin inoo tahay in had iyo jeerna aan ka ogaano halka waxaan dhigayno qiimaha iyo value ay leeyihiin aad baad maaragtay ugu mahadsantihiin cid ka soo daneeynaysan si u gaarto waxaan ka codsanaynaa inaad maaragtay kuna taxnaataan bulshada kalena si u gaarto aad ugu dadaashaan waa channelkiini sidoo kale Abqari Online Academy casharadii iyo duruusi caadiga ahaa oo khidmad yarta oo fiiga ah la iska bixinayayna si toos ah uga socota Abqari YouTube channel aan dhahay Abqari Online Academy casharada caadiga ahaa systemkii caadiga ahaa laba koorso oo waaweyn ka socda koorso beginner ah oo 6 bilood soconaysa interchange book 1 lagu qaadanayo intro book iyo casharada basic ah koorso kale iyadana 3 level lagu qaadanayo oo intermediate ila advanced ah oo 6 bilood iyadana level 1 iyo level 2 level 3 lagu qaadanayo workbook student book leh sidoo kalena lagu qaadanayo basic English grammar book 1 iyo basic English grammar book 2 iyo vocabulary hal book ah lagu qaadanayo khidmad yar oo $5 iska bixinaysa waad helaysaa sidoo kale koorsooyin kala jira sida vocabulary-gan oo kale 6 book ka kooban yahay 6da book 4 bilood gudahood ayaa lagu dhigaa booktina waad helaysaan dhawaaqoodana waad helaysaan iyagoo video ah booktina waad helaysaan certificate-na waa idinku siinayaa qofkii daneynaya inuu si waqti kooban ku helo kan asbuuciiba hal unit la soo dhigaa isna waad ka faa'iideysan kartaa faa'iiday ku noqon kartaa marka taasna ka faa'iideysan insha Allah kuna soo dhawaada aad ayaad mahadsantihiin sidoo kale Abqari Online Academy qaybta Facebook page-ka cashar laftigiisa cashar free ah la soo dhigaa sida YouTube ka kale laakiin kuwaas khidmad yar la iska bixinaa Abqari Online Academy-ga oo aad u badnayn oo $5 ah marka qaar koorsooyinku waa ka yara badnaan karaan laakiin sida normalka $5 maaragtay caadi ah haddaba maantay waxa waaye unitkii 6aad ayaa sida ka muuqataba book 1 unitkiisii 6aad ayaanu ku jirnaa la socosho wanaagsan unitka 6aad waa unit 6 waa 20 word listiga 20kii eray ayuuna siinayaa oo target word-ka ahaa marka intaan sharaxaada iyo meaning-ka aanan u gelin waxaan ka hormarinaynaa marka inaan dhageysano 20kii eray oo macnihii iyo dhawaaqii iyo intaba maaragtay example-adiisa dhageysigooda la socosho wanaagsan insha Allah aad u mahadsantihiin soo dhawaada
ومر kale iyo Macalin Abqari YouTube channel casharkan waxaa idin wada isla Macalin Abqari soo dhawaada commentiga in maaragtay aad heshaan sida xaalkiinu yahay sida fahanteen commentiga nagula wadaagtaan iyo wixii kale xataa maaragtay in la sharaxa ama meelaha maaragtay weakness-ka ka jiro cidadan aynay soo gudbin kartaa waana idinkaga mahad celinayna insha Allah aad ay u mahadsantihiin aan dhageysano insha Allah. Unit 6. Word list. Advantage. An advantage is something that helps you. Being tall is an advantage to a basketball player. Cause. To cause is to make something happen. The cold weather caused her to get sick. Choice. A choice is the act or possibility of picking something. I had my choice of 5 doors to open. Community. A community is a group of people who live together. The kids from my community usually play together. Dead. To be dead is to not be alive. A dead person is usually buried in the ground. Distance. The distance between two things is how far it is between them. The distance between the Earth and the Moon is 384,400 kilometers. Escape. To escape is to run away from something bad. The butterfly could not escape from the cage. Face. If you face a problem, you deal with it. My sister and I have to find a better way to face our differences. Follow. To follow means to go behind someone and go where they go. The little boy followed his mother home. Fright. Fright is the feeling of being scared. She was filled with fright. Ghost. A ghost is the spirit of a dead person. Many people are afraid of ghosts. Individual. An individual is one person. Only one individual could win the bicycle race. Pet. A pet is an animal that lives with people. Out of all my pets, the dog is my favorite. Reach. To reach means to arrive at a place. I was happy to finally reach my destination. Return. To return is to go back to a place. I was happy to return home to my mom after school. Survive. To survive is to stay alive. My dog survived her fall into the water. Upset. To be upset is to be unhappy about something. She was upset because she broke her toy. Voice. A voice is the sound a person makes when they talk or sing. He used a microphone so everyone could hear his voice. Weather. The weather is the condition of the air. Hot, rainy, windy, etc. The weather can be sunny, rainy, or cold. Wise. To be wise is to use experience and intelligence to make good choices. Many people believe that owls are very wise animals. Okay, insha Allah halkaas waxaa inoogu ekaaday dhageysiga aan dhageysanaynay erayada 20ga oo target wordska marka macnihii ayaan u galaynaa insha Allah. Erayga koowaad waa advantage, waa noun, waa an advantage waa faa'iido is something that helps you, oo wax adiga ku caawinaya. Being tall, inaad qof dheer tahay, is an advantage, waa faa'iido to a basketball player. Faa'iido waa qofka basketball playerka ciyaaryahanka ah. Cause waa sababay, to cause is to make something happen, waa inay wax dhacaan.
To cause is to make something happen. Suurtagelin inay wax dhacaan. The cold weather cimiladii qaboobeed caused her to get sick ayaa sababtay iyada inay xanuunsato. The cold weather caused her to get sick ayaa sababay inay xanuunsato. Choice waa dooqasho ama kala xulasho haddii kale. Choice waa noun. A choice is the act waa fal ama possibility suurtagalnimo of picking something inay wax qaadato wax xulato. I had my choice of 5 doors to open. dooqayga ama doorashadu waxa waaye sida sawirka muuqata 5 albaab inaan maaragtay mid aan furto. Community waa bulsho. A community is a group of people waa koox dada who live together kuwaasoo wada nool. The kids caruurta from my community usually play together badanaa way wada cayaaraan. Caruurta kasoo wada jeeda community bulshada. The kids waa caruurta from my community ee kasoo jeeda bulshadeyda usually play together badanaa way wada cayaaraan. Dead waa adjective waa dhintay qofka markuu dhinto he's dead ayaa laleeyahay ama she's dead. To be dead qofku markuu inuu dhinto is to not be alive waa inuusan noolaan waay. Dhimasho to be dead is to not to be alive. Alive iyo dead waa iska soo horjeedaan. Alive waa nool haddii la yidhi qofkan he is alive haddii qofkan she is dead wuu dhintay ama way nooshahay. Alive iyo dead waa bilcagsi isku yihiin waa opposite wordska. A dead person is usually buried in the ground. Qofka dhinta badanaa waxaa lagu duugaa dhulka ayaa lagu duugaa. Distance waa masaafo waa noun. The distance between two things masaafada u dhaxaysa laba shay is how far it is between them. waa farqiga ama masaafada u dhaxaysa ayaa loo yaqaanaa distance. The distance between the earth and the moon masaafada u dhaxaysa dhulka iyo dayaxa is 384,400 kilometers waay. 384,400 kilometer ayaa u dhaxaysa earthka meeraha earthka iyo bisha dayaxa macnaha. Escape waa baxsasho waa verb escape. To escape is to run away waa inaad cararto ama ka baxsato from something bad wax xun. The butterfly waa balanbaalista baasha loo yaqaano sawirka sida ka muuqata. Could not escape ma aysan ka baxsan karin. Couldna waxay ka timi canvasigeedii waaye from the cage. Cage waa maxay? waa meelaha xayawaanaadka yararka oo maaragtay la gelisho. Marka shabaqaas yarka ayaa la yiraahdaa cage. Eeyaha iyo digaagada iyo meelaha lagu xareeyo. Face waa wajahid. If you face a problem haddaad dhibaato wajahdo you deal it with waad la macaamilaysaa macnaha. My sister and I anigii walaashay have to find a better way. Have to waa obligation must oo kale waaye. waxaa waajib inagu aniga walaashay find a better way inaan helno hab wanaagsan. Better way hab nidaamka ku macaamilayna kasii wanaagsan to face our difference ee aan ku wajahno farqiga noo dhexeeya inaga oon isaga xalina macnaha. Follow waa raacid ama dabagelid qof meesha u socda inaad raacdo. To follow means to go behind inaad daba gasho someone qof. Go behind gadaashiisa inaad raacdo ama daba gasho. And go where they go aadnida halka ay aadaan. The little boy followed his mother home. Wiilkii yaraa wuxuu hooyadii u raacay guriga. Fright waa cabsasho baqadin. The fright is the feeling of being scared waa dareen ah inaad baqdo waay. Fright waxay noqonee dareen ah inaad cabsato. She was filled with fright way baqday ama way cabsatay. Ghost a ghost is the spirit of a dead person waa ruuxda qof dhintay. Ghost haddaad maqasho waa maxay? waa meesha aakhiraadka aan ka nidhaahno. A ghost is the spirit of a dead person waa ruuxda qof dhintay. Many people dad fara badan ama dadka badan many people dad fara badan are afraid of ghosts ayaa ka baqa aakhiraadka. Individual waa shakhsi. An individual is one person waa hal shakhsi. Only one individual could win the bicycle race. Only one individual kaliya hal shakhsi could win ayaa ku guuleysan kara the bicycle race tartanka baaskiilka. Race waa tartan bicycle-na waa baaskiil. Marka tartanka ujeedada sawirka tartanka baaskiilka hal qof ma ku guuleysan kara. Pet xayawaanka laba loo qaybshaa dabjoog iyo duurjoog.
pet waxa waaye xayawaanka dabjoogta dadka la nool sida bisadaha iyo eeyaha iyo ayaa wax loo yaqaanaa pet. A pet is an animal waa xayawaan that lives with people dadka la nool. Out of all my pets dhammaan xayawaanaadka oo rabaayada ah oo guriga jooga ama aniga aan maaragtay rabaayaysto, the dog is my favorite. Eyga ayaa ah midkaan xiiseeyo. Reach waa gaarid ama tagis goob inaad gaarto. To reach means waxa waaye to arrive at a place inaad goob timaado. To reach waxay noqonaysaa means macnaheedu waxa waaye to arrive at a place inaad goob timaado. I was happy to finally reach my destination. I was happy aad ayaan waan faraxsanaa to finally reach inaan ugu dambeyn gaaro my destination. Destination waxaa la yidhaha halka qofka targetka u ah ama alaabta la diraayo ugu dambeyn ay tagayso ayaa destination loo yaqaana. Marka waxa waaye I was happy to finally reach my destination. aad waan faraxsanahay aniga ugu dambeyn maadaama ugu dambeyn finally reach my destination aan gaaray meeshii aan u socday. Return laabasho soo helaya. To return is to go back to a place waa goob inaad ku laabato. I was happy waan faraxsanaa waxaan ku faraxsan to return home inaan guriga ku laabto to my mom after school kadib inaan guriga ku laabto ayaan ku faraxsanaa. Survive waa badbaadid. To continue alive. To continue to live. To be alive waa inaad noolaato. Khatar kusoo wajahday ama maaragtay risk aa gashay macnaha darteed inaad badbaado noolaato. To survive is to stay alive waa inaad sii noolaato. Stay alive waxay noqonaysaa sii noolaansho waa khataraa kusoo wajahday laakiin waa ka badbaaday. My dog survived her fall into the water. Eygaygu wuu ka badbaaday dhicidii uu ku dhacay biyaha. Upset waa murugaysan. Upset maxaa waaye murugaysan. To be upset inaad murugooto is to be unhappy waa inaadan faraxsanayn about something wax aadan ku faraxsanayn. She was upset way tiiraanyeysnayd ama way murugaysnayd because she broke her toy. Sababtoo ah waxay iska jabisay boombilaheedii. Voice waa cod. A voice is the sound waa dhawaaqa of a person a shakhsi makes uu sameeyo. Voice is the sound a person makes. Dhawaaqu waa dhawaaq. Voice codku waa sound dhawaaq a person makes uu sameeyo when they talk or sing markay hadlayaan ama ay heesayaan. He used a microphone. Wuxuu isticmaalay microphone so everyone could hear. Qof kasta sida darteed everyone could hear. Qof kasta wuu maqli karaa his voice codkiisa. Weather waa cimilada. The weather is a condition of the air. Waa xaaladda hawo. Hot kulayl. Rainy marka macnaha roob tahay. Windy markay dabayl jirto. etc iyo wixii lama etc ama etc wixii lama. The weather can be sunny, rainy and cold. Cimiladu waxay noqon kartaa can be waxay noqon kartaa possibility loo isticmaalo can't markaas can't awoodi maaha waa iyada laakiin looma isticmaalo. The weather can be maybe oo kale marka u dhigantaa sunny mid cadceed ah, rainy mid xilli roobaad ah, cold mid qabow cimilada noqon kartaa. Wise waa caqil qofka inuu khibradiisa caqligiisa aqoontiisa inuu isticmaalo si uu wax wanaagsan u sameeyo. To be wise in qof caqil ama qof caqli la noqoto is to use waa inaad isticmaasho experience way aragnimo and intelligence caqli to make good choices sa u samayso go'aano wanaagsan ama xulasho wanaagsan. Many people believe dad fara badan ayaa aaminsan that owls bahalka loo yaqaano guumayska a very wise animal inuu yahay xayawaan aad u caqli badan. Haddaba 20kii eray ayaa intaa ku eg. Buugu exercise uu leeyahay. Exercise 1 oo kale uu leeyahay oo 2 part 2 uu leeyahay. Exercise badan uu buugu ilaa dhowr exercise uu leeyahay. Laakiin anagu hadda casharka uma sharaxayna. Wuxuu kale leeyahay sheeko yar oo maaragtay markasta oo waliba dhageysi leh uu leeyahay. Marka hadda waxaan ku jirnaa hadii dadku bato codsigu bato commentiga lagu soo gudbiyo waa codayda laftigeeda dhageysi leedahay. Reading comprehension uu leeyahay.
la kala xunanayo buuggu unit kasta qaybo fara badan oo ka kooban yahay markaas kadib aa unitka kale loo gudbayaa marka haddii ardaydu ay codsigooda iyo commentiga ay maaragtay ay ku soo bataan codsigooda kusoo bandhigaan oo laakiin unitkii kasta unbaan akhrinayaa dhageysigiisa iyo micnaha soomaaliga unbaan hadda maaragtay waqti badan gelinaa laakiin haddii ardaydu bulshada soomaalida kala duwan ee daneynaya ku tixan Macallin Aqbari YouTube channel ee aad u daneynayaan oo in maaragtay exercisyada iyo howlahaas laga wada shaqeeyo waa qiimeynaan samayn doonaa insha allah history qayb uu leeyahay sheeko yar oo ku khulaaseynaya ereyada dhan haddana kusoo bandhigaya marka aad iyo aad mahadsantihiin waa Macallin Aqbari YouTube channel waa Macallin Aqbari waa casharkan intaas uu ku egyahay maantay fadlan si aad uga faa'iidaysato qaybaha kala duwan duruus sidoo kalena waxaan bilaabi doonaa book grammar oo loo yaqaano basic English grammar book 1 iyo book 2 laba qayb ka kooban yahay salafta waan bilaabi doonaa cashar kale oo aad muhiim u ah oo kala duwanna insha allah waa soo bandhigi doonaa marka laakiin commentigiina iyo dhiirigelintiina iyo maaragtay laagta shareta subscribe-ta iyo gambala furashada iyo sida noo dhiirigelitaan insha allah ayaan maaragtay insha allah haddii ilaahay yidhaahdo aan soo dhaweynaynaa waana ku mahadsantihiin intii hadda ka mid noqotay rukumatay casharadii duruusta iyo intii hadda maaragtay danaynayso kalaba aad ayaad mahadsantihiin waa Macallin Aqbari YouTube channel waana Macallin Aqbari oo idin leh sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu